waxaan halkan idinkula wadaagaynaa macluumaad ku saabsan sida loo afduubay weriye cali nuur salaad oo ah agaasimaha warbaahinta dawan media ee magaalada muqdisho sida ay nala wadaageen dad ehelka ka mid ah saxafiyiinta iyo dad ka tirsan dowladda maalinkii isniinta gelinkii dambe waxaa cali nuur salaad soo wacay hanti dhowraha dowladda federaalka axmed ciise guutaale oo cali nuur ay is yaqaaneen shakhsiyan horena u wada shaqeeyeen meel u dhow masaajidka isbahaysiga oo u dhow madaxtooyada ayaa lagu ballamiyey waa halkaas halka laga afduubay cali nuur salaad oo ay ku sugaayeen rag hubaysan oo uu hogaaminayey ninka ah taliyaha booliiska gobolka banaadir oo la yidhaahdo macali mahdi dadka intiina aanan ogeyn taliyaha booliiska gobolka banaadir macali mahdi waa kooxdii shabaab ee kusoo biirtay nabad sugidda kadibna booliiska sida sharci darrada ah loogu daray cali nuur waxaa isniintii iyo talaadadii inteedii hore gelinkeedii hore lagu hayay saldhigga booliiska waaberi degmada waaberi magaalada muqdisho talaadadii oo shalay ahayd gelinkii dambe 23 bisha July 2024 ayaa halkaas laga kixiyey waxaa la geeyey taliska booliiska qaybta gobolka banaadir waxaa loo gudbiyey maxkamadda gobolka banaadir sidaa la socotaan maxkamadda dadku waxay ka baxaan wixii loo gaaro labada duhurnimo ama 8 saac marka gelinka dambe maxkamaddu waa firaaqo cidna ma joogto marka xilli dadku ay shibtu kala degan tahay ayaa lagu aadiyey halkaas ayaa waxaa looga soo gooyey warqad la yidhaahdo xabsi xalaaleen ama xabsi ku hayn oo sharci darro ah qareen lama socon ehelkiisuna kama warqaban dacwad la qaaday oo la dhegaystay oo go'aan looga gaaray in xabsi lagu hayay in kalena may jirto kaliya waxaa la qoray warqad la yidhaahdo xabsi ku hayn waxaan halkan idinkula wadaagayaa waxaa ku qoran warqadda cali nuur xabsiga dhexe ee muqdisho lagu geeyey waxaa ku qoran 5 qodob qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta ah wuxuu leeyahay 220 waa ceebeyn sharafta iyo sumcadda madaxda qaranka qodobka 402 xeerka ciqaabta falalka anshaxumada qodobka 403 faafinta iyo daabacaadda anshaxumada qodobka 451 aflagaado qodobka 452 xeerka ciqaabta ceebeyn shantaas qodob ayay ku qoreen warqadda cali nuur salaad lagu geeyey xabsiga dhexe ee muqdisho maalinkii shalay ee talaadada waxaa yaab leh qodobadaas oo dhan waa qodobo aanay caddayn sababta uu ku mutaysan karo waa qodobo nidaamyada dictatorshipka ay u isticmaalaan inay ku aamusiyaan dadka ka aragtida duwan oo ay saxafiyiintu ka mid yihiin waa qodobo aan fasiraad lahayn maldahan aan caddayn dhinac loo qalloocin karo dhinac kalena loo qalloocin karo waxaan oo dhan waxaa riixaya madaxweynaha xasan sheekh maxamuud cali nuur ma jirto wax dembi uu galay lacag ma dhicin dadna ma dilin ciddayn ku lehna ma jirto waxaa loo haystaa warbixinnada iyo macluumaadka xaqaa'iqda ku salaysan ee uu soo bandhigaya tii ugu dambaysay waxay ahayd arrinta ku saabsan dhibaatada qaadka uu leeyahay jaadku dhibaatada uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed ma been baa qaadka inuu dadka iyo caafimaadka bulshada dhibaato ku yahay inuu daroogo yahay been miya in askartu qaad cunaan been miya inay qaadiroodaan oo hurdaan been miya in markay hurdaan la soo weeraro been miya in madaxda dowladdu qaadka ganacsadaan been miya in qaadka lacag laga qaado been miya in lacagtaas la kala goosto been miya in madaxweynuhu wax ka helo been miya in dal aan u hogaamin karin qof ka ganacsada daroogo been miya intaas ayuu kaga hadlay warbixinta cali nuur salaad qofkii daawaday uu daawaday weliba ma uusan sheegin magac weliba xasan sheekh magaciisa ma uusan sheegin madaxweyne waa la eedeyn karaa waa la dhaliili karaa saxaafaddu waxbay ka sheegi kartaa waxbay ka qori kartaa isagaa u yimid xafiis dowladeed soo doontay oo maaragtay xafiis public ah oo ummadda leedahay isagaa yimid waana laga hadli karaa waana la sheegi karaa
وين دلقات كذا يا شا دليلها وانو اسكا صحا واسكا توسيا وليبا يسوى مقعيس اللي شيغين فرته iyo meesha bugta is ogay madaxweynuhu waa kaas cali nuur soo weeraray u adeegsaday guutaale alcadaala oo ku soo qoray TV-gii dawladda isagoo ceebeynaya waa magac dilaya cali nuur salaad iyo ninka soo afduubay oo ciidanka iyo hubka watay oo la yiraahdo macallimaha ka maxkamadda joogay waxa la leeyana waxba kama duwana xariga uu xiran yahay cali nuur waxba kama duwana afduub siyaasadeed sidaan sheegnay waana ku celinaynaa mar kale xarig kasta oo qof jidka maraya lagu soo qabsado bilaa sharci waa afduub waa in saas loo fahmaa afduubku waa afduub ama ha geysto qof dowladda ka tirsan ama ha geysto maleeshiyo jidka socota afduubku waa afduub ama maxkamad ha xalaalayso ama nin wadada maraya warqad ha kuu qoro afduubku waa afduub waa in saas loo fahmaa cali waa afduumaya waxaan garab taaganahay cali nuur iyo inta xaqiiqda ka hadasha waxaan rabaa inaan sidoo kale tilmaamo oonan ka tegin dhalinyarada Soomaaliyeed ee baraha bulshada ka shaqeysata ee talentigooda iyo waxqabadkooda ku soo bandhiga ee halkii shaqo la'aanta ay badi lahayd tahriib iyo argagixisanimo iyo tuuganimo ay badi lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ka doorbiday inay baraha bulshada ka shaqeystaan oo baraha bulshada macluumaad ku soo gudbiyaan oo ku soo bandhigaan oo nasiib darro maanta halkii dawladdu ay dhiirigelin lahayd oo wax u qaban lahayd oo wax u tari lahayd ay maanta raadsanayso oo guryahoodii ka raadsanayso dhacdooyinka u dambeeyay oo dhan markhaati baad ka tihiin qaarna waddankay ka carareen qaarna dhuumashay ku jiraan qaarna way isgaabiyeen markii ay shaqaysan kari waayeen maxaa lagu xiray cali catoosh yare maxaa lagu xiray maxaa laga rabaa oo loo bursanayaa Cabbaas Bulbul muxuu u xiran yahay macallin samafale bulshadu ay taqaano oo la yiraahdo Cali Khataab muddo 2 toddobaad ah ku jira xabsi gudaha magaalada Muqdisho nin dhalinyaro ah dadka jilicsan ee nugul bulshada u adeegi jiray macallin ah aqoon-yahan ah maxaa loo xiray waxaa loo xiray 1 bisha Luulyo ayuu ka hadlay xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho oo dadweynuhu ay ku dhibaatoodaan oo uu sheegay in arrintan waxaan la qaadan karin ay xabsi ayuu ku jiraa waxaan ka murugoonayaa ka calal xumaanayaa in Cali Khataab dhacdada ku dhacday ay tahay tii labaad oo qoyskiisa soo gaartay waxaa la ii sheegay oo la ila wadaagay cali wuxuu ka soo jeedaa deegaanka Caabud Waaq gobolka Galgaduud waxaa la ii sheegay walaalkiis oo musaafir ah in baabuur lagala degay oo lagu dilay wadada lagu dilay nasiib darro soo dhibana ahaa qoyskiisu ay dhibana ahaayeen halkii uu nabad ku dareemi lahaa caasimadda Soomaaliya ku dareemi lahaa Muqdisho inuu xabsi ku jiro xabsina ugu jiro inuu hadlay oo aragtidiisa soo bandhigay taas waa xaaladda Muqdisho iyo wadciga ay marayso hadda ma bilaaban 24 bilood ka hor ayaan ka hadlay oon sheegay welina meeshii ayaan taaganahay sidii ayaan u sheegayaa dhaqanka socda ee 2022 socday ee aniga lagu weeraray xafiiska ururka saxafiyiinta Soomaaliya SJS lagu weeraray wax kale ma ahayn waxay ahayd cid kasta wax galaysa cid kasta wax garanaysa cid kasta oo wax fahmaysa fahmi karta meesha loo socdo in la beegsado waana wadada hadda ay ku socoto iyo sida hadda ay wax u socdaan maanta maxaan u baahannahay waxaan u baahannahay inaan xaqiiqada iyo runta garab istaagno oon ka hor imaano oon diidno dulmiga iyo cadaalad darrada inaan u hiilino cadaaladda waa dhinaca Cali Nuur iyo dadka kale oo dhanba ay jiraan ee uu hadda ugu jiro xabsiga ugu jiro ee uu xiran yahay macallinka samafalaha ah ee Cali Khataab iyagaan la jirnaa iyagaan garab taagannahay waxaan ku baaqaynaa bulshada rayidka hore u dhimatay horeyna aan u sheegay in la dilay oo la magac dilay oo la bah dilay bulshada rayidka Soomaaliyeed inay jiritaan muujiso inay naf isgeliyaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan
haddii aad u haysataan in saxafiyiinta la weeraro inay idin dhaafayso idinma dhaafayso guryihiina idinku soo gelaysaa dukaamada idinkugu imaanaysaa maqaayadaha iyo masaajidada idinkugu imaanaysaa maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay magaalada muqdisho oo mushkilad haddu ay ka taagan tahay dadka jooga ganacsataha aato ama saxaafadda aato ama bulshada rayidka aato waa inay mudaharaadyo sameeyaan waa inay soo baxaan waa inay diidaan gumaadka iyo tacadiga iyo dulmiga koox yar nama gumaysan karto koox yar naguma amar taagleen karto koox yar naguma edab darroon karto dad badan waxay isku qancinayaan yes maalmaha dhow waqti yaraa u harsan way tegi doonaan laakiin sida ay u fikirayaan iyo waqtigaas yar laftirkeeda xanuunka ay ummadda badayaan ayaa ka dhib badan sidaa darteed siyaasiyiinta xildhibaanada waxgalka ah ee baarlamaanka oo aan la soconno doodahooda wax ku oolka ah qaarkoodna warbaahinta laga joojiyey warbixinadii ay jeediyeen waxaan la socdaa xildhibaanada qaar doodihii baarlamaanka ay ka jeediyeen iyo hadalladii ay jeediyeen in warbaahinta looga daba tegey oo warbaahinta laga saaray oo laga tirtiray muuqaaladoodii laga saaray si codkooda wax ku oolka waxtarka ummadda soomaaliyeed aanu u gaarin sidaa darteed xildhibaanadaas la beegsanayo siyaasiyiinta mucaaradka ah dhallinyarada bulshada ganacsatada shacabka soomaaliyeed ee canshuuraha xaddhaafka ee caqli darrada dusha laga saaray waa inay midoobaan si ay u diidaan dulmiga si nabad ah cadaalad loogu hiilinayo loona diido looga hor yimaado tacadiyada socda waxaan garab taagannahay ku baaqaynaa inay xorriyaddooda helaan weriye cali nuur salaad macallin samafale cali khataab waxaan ku baaqaynaa oon ka digaynaa in la joojiyo weerarada kale ee aan ognahay hadda inay qorshaysan yihiin oo loo qorsheeyey dad kale oo saxaafadda siyaasiyiin iyo dad waxgal ah oo bulshada ka midka ah loo qorsheeyey dhammaantood cawaaqib xun keliya unbay horseedayaan ee natiijo iyo faa'iido ma geenayaan